waxa weeye hadda ka hor nin Ethiopian professor wuxuu yiri Soomaaliya isaga ninkii haatay inta wada hadleen waqtigii Soomaaliya la qaybsanaha waa la gaaray waa gartay qaybsigii bay Soomaaliya hadda miiska u saaran tahay far walbaba maaragtay fargeetay gacanta ku haysataa ay u qaada lahayd cadkeedii gartay ummadda Soomaaliyeedna waxay ku mashquulsan tahay dad diaspora oo qalbigoodii iyo moraalkooda la soo gadiyay oo 91 ummadda Soomaaliyeed qaxi iyo beelbeesha dagaalkoodii ay ku kala qaxeen qalbigiisa mid kastaba ay ku dheehan tahay reer hebelkayga maartay madfac la dhacay wiila aniga la iga dilay walaashay la dilay dad qalbigooda ay ku dheehan tahay oo aan Soomaaliya inay inta ku 20 sano dagaal ka dhax socday qof walba dagaal inuu san ku adkaa karin ogaaday isku sameeyay ka bacdina sidii dad Soomaaliya oo wadaniyiina inay ka dhax abuurmeen oo dalkan loo rabo marxalad ka gedisan midaas dadaan garawsanayn oo ninka ajnabiga ah ee cadaanka ama Ethiopianka iyo asagu dalka waxa u dhaxeeya inay dalka sidii u kala leeyihiin aan maartay ay u qiimaysanayn iyo wiilal yar yar oo wata bahadka la yiraahdo iPhone-ka iyo iPad-ka iyo maartay tablet wata oo maartay sawir ku dhufanaya hadda qofkii socda oo maartay ku sawiradaas intay u geeyay maartay dadka cadaanka oo iyo dadka mustacmariinta oo dalkan doonaya inay goobaan oranaya kana argagaxisa iyo kana dambiila iyo kana monitoring group daba socota iyo kana qolo daba socota qorshahaas dalka ku socda ragga aad leedahay qurba joog ayaa ugu horeeya waxa wadankan qaribaya halkee joogan raggaas wallahi qurba joogtu hadda waan dadkan afka qalaad lagu yiraahdo dagaaga soo hadeerna gaaladana u taqaan diaspora macnaheedu waa dagaag waxa weeye dad dagaag ah waa gar marka dadkaas weeye dadka maartay waxayna joogaan hadda waxay ka yimaadaan qurbaha waxaan ka imid hadda markaad magaalada wasiirada ama golaha wasiirada ama siyaasiyiinta hadda magaalada Muqdisho magaalada hoos ordayso cadaanka hoos ordaya aad daristo way ku leeyihiin Minnesota ka imid iyo Virginia ka imid iyo anaku reer London aan isku nahay iyo reer Norway aan isku nahay waxaas ka socda gartay waa ka marka maxaad nooga taaban kartaa dhibaatada ay wadanka u horseedayaan wallahi hadda Soomaaliya isticmaalka ay ku jirto inay ku sii fogaado oo ummadda Soomaaliyeed si saxan iyo Ethiopia oo Soomaaliya nuxurkeeda sharafteeda dishay oo Soomaaliya qayb qabiil u kala qaabinaysa oo gaarsiisay heer ay tiraahdo odayaasha inta la qaarka kale yiraahdo isfashiliya oo inta soo istaajiyay yiraahdo oday kastaba anigu mucaaradaan ahay iyo saasaan yeelay taas Ethiopia u dhaqmaysay ayaa la yiri waxaad ka mid noqonaysaa maartay nabad ilaalinta Soomaaliya u imaanaysa macnaheedu waxa weeye kala qaybinteeda qaarna marka adeer intaas ka socota dadkeeduna dhaqmasho uma laha madaxnimo uma laha maartay maanta dadkeedu ma gartaan Soomaaliya sida loo rabo waxaan ugu maqaalaa in la boobayo kheyraadka dalka gaar ahaan waxyaabaha hadda muuqda oo dadku ay ku soo warameen waxa kamid ah buuraha kaba oo kale in halkaas rag cadaana ay faagayaan oo qalab ay ku baarayaan jaziira oo kale iyo meelo badan oo xitaa magaalada marka ay kamid tahay maxaad kala socotaa waxana loo haystaa waxa weeye Ilaahay maartay barwaqada uu nagu manaystay oo aan u lahayn aragtida iyo qoonta iyo dadaxanimada inaan difaacno oo aan anaku ku anfacsano taastaa dulaan lagu yahay waxa aan eersanayna waa midaas waxa la rabo maartay in maartay loo soo aaday dalka shirkado shidaal oo warqado saxiixaya jira oo dokumentiyaalkeedu cad yihiin oo la hayo oo aniga aan qaar hayo oo goobaya petrol meel ay ka qabtaan ceelashu waa arkoonay annaka iska leh noo askaran tahay hanaloo milkiyo hebel hanoo saxiixa leh waxaan arkay macdanta kuwa oranayo waxaan arkay gaaska kuwa oranayo waxaan arkay kuwa beeraha u soo shaqo tagnay waxaan arkay Soomaalida waxa laga rabaa xoogaa yaro sida maartay shaqaale oo shaqaale laga dhigo Soomaali wax lama rabo iyo dawr shahaado suuro oo siyaasiyiin oo la yiraahdo madaxweynaha tahay wasiir tahay oo lagu maahiyo sidaas